kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada sheekadii curad oo aad halkan kala socoteen. sheekadan oo ah qiso dhab ah oo ku dhacday mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxa qoraalkan ka sameeyay wariye Maahir Jaamac Aadam, waxaana codeynaya anigoo ah Ciise Maxamuud Ciise. halkaad kala soconaysaanna waa channelka Ogaalka Audiosom. ku soo dhawaada qaybta xigta qaybtii horay aad u soo dhageysateen. waxaa noo bilowday toddobaadkii sugitaanka walaalahay. inta aan ku guda jirnay waxaa dhacday dhacdooyin badan, laakiin waxaa noogu muhiimsan ee aan ka soo qaadan karo ayaa ah inay mar qura guriga ka baxday maamada oo markii dambe laga warhelay inay u safartay magaalo kale oo dalka ah. anigu dadka maalin kadib ku baraarugay maqnaanshaheeda ayaan ku jiray. haddana markaan xuuraansaday waxaan ogaaday inay magaaladan oo dhanba ka maqan tahay. dadka ehelka ah qaarkood waxaa loogu sheekeeyay safarka maamada inay aaday walaalkeed oo baadiyaha ku xanuunsanaya, laakiin xaqiiqadu sidaa way ka duwanaan kartaa mar haddii ay safartay ayadoon si wacan uga dardaarmin guriga iyo howlihiisa. aniguse weli waxaan taagnahay maya tuhun kale. xaafadda oo dhan dadku waa madluun. Saara markii aan is aragnay waxay hadal iigu soo koobtay, sowmaadan maqlin raggii way soo socdaan. waa ay ula jeedo walaalahayn soo socda ee la sugayo toddobaadkan. anna uma sii gelin weydiimo kale ilaa laga gaaray maalintii aeroboortka laga doonayay walaalahay ee uu ka mid yahay Khaalid. marka ay soo degeen waxay ku soo horeeyeen guriga, waxayna bilaabeen xog waraysiga ruux walba oo naga mid ah. aniga aragtidooda aad baan ugu farxay, ka sokow inaan ahaa dhibana caawintiisa loo yimid. haddana waxaan dhinaca kale ahaa walaal u hiloobay walaaladii ka waaweyn ee aan muddo ka badan 10 sano arag. Khaalid markuu indhaha isaaray wuxuu igu salaamay kaftan iyo dhoolla cadeyn wada socda, wuxuuna iigu yeeray magaca ah Curad, isagoo dhahaya war ninkii curad ahaa wuu weynaaday, qosolna raacinaya. ma moodaa in qisadaydan ay dhaxalsiisay magac iyo taariikh gaar ah oo la igu wada xasuusto. si walba oo ay ahaataba waa xaalad daran oo ruux kasta baraysa halisaha ku xeedhan nolosha bini'aadamka. maalinkaas iyo habeenkeediiba waxaan ku wada qaadanay soo dhoweyn iyo ka sheekeyn waxyaabihii dhacay. waxaa la gaaray maalinkii labaad. walaalkay Khaalid ayaa igu yiri nakeen xilli barqadii ah. waan raacay isaga iyo adeer oo waxaan ka haysanay gaarigii Maxamuud. waxaan ku horumarnay maxkamadda oo aan warqad damiin ah ka soo samaysanay si Maxamuud inta uu bannaanka u yimaado haddana ula tashano. markaan hawshaas ka soo baxnay ayaan soo marnay saldhigga degmada. walaalkay Khaalid ayaa cabaar la soo shiray taliyaha, kadibna hal mar ayay soo wada baxeen oo aniga iyo adeer oo meel wada taagan ayay noo yeereen. kadibna waxaan isku wada raacnay dhinaca ay ku jiraan maxaabiista saldhigga lagu hayo. ma garanayo sababta uu nin askari ah halkaas noogu horkacay. sidaan u soconnay ayuu askarigii furayaal badan oo dhinaca ugu wada xidhnaa la soo baxay, wuxuuna furay qol ilinkiisa uu yahay bir adag oo gaaban, leh duleelo yaryar oo sida shabaqa ah iyo meel ruuxa uu wax ka soo eegi karo. qolkaas looma wado midkeen inteena wada socota, laakiin qofka ku jira gudihiisa ayaa muhiim ah inaan soo aragno. yuu noqon karaa qofkaas? waa su'aasha igu taagan inta uu askarigu la xarbinayo iridan adag furiddeeda. wax badan ma sii qaadan in bannaanka loo soo saaro qofkii aan ku soconnay inaan soo aragno. isla qofkaas isaga oo foorara islamarkaana jeebeysan ayuu askarigii soo qabtay garabka una soo saaray dibadda si aan u xaqiiqsanno wejigiisa. waa asagii. alla wallaahi waa ninkii odayga ahaa ee sida jinka saqdhexe habeen isagoo gabadh yar wata u soo dhacay qolkayga. alla walaal Khaalidow ninka waa ninkii, wallaahi walaal waa ninkii
ninku waa ninkiiga xagee loo sii daayay alla adeerow walaalow askariyow ninka qabta waa asagii alla odaygan waa kii gurigeenna yimid alla ninkan waa kii qalday noloshayda ilaahow adiga mahadda leh oo igu simay araggiisa intaas oo hadal ah oo ay la socdaan guux iyo taa halkan aanan ku soo gudbin karin jabaqdooda baan afka furtay waayo marna habeen kuma fikirin inuu ninkan yahay qof nool oo sideenna oo kale ah haddana ay gacan aadanay qaban karto waxaan u malaynayay inuu yahay jin soo raacay hawada oo u soo degay dhulka siduu aniga ii waali lahaa nin adduunyo joogow maxaa aragti kuu laaban alla maanta farxad iyo argagax badana inta aan hadalladaas badan ku qaylinayo waxaa labada garbood iga haya adeer oo idhahaya isdeji waa la hayaa ninkan mana baxsan karo sharci baa la marinayaa sug adeerow isdeji ninkan maalmo wuu xidhan yahay walaalka uunbaa lala sugayey inta aan adeer gadhkiisa qabto ayaan anna ku leeyahay hal mar iisii daa adeerow waxbaan su'aali ninkan laakiin adeer si xooggan ayuu iisii qabanayay si aanan uga baxsan gacmihiisa maxaabiista uu ninkan la xidhnaa ayaan arkayay ayaga oo duleelada iridda naga soo eegaya kollay ma aqaano sida ay noqdeen markii aan ninkan qolka kula xidhnaa ku tilmaamay jin ka yimid hawada waxaa laga yaabaa inaan halkaas ku biiray qalqal hurdadii ay maxaabiis badani si dirqi ah ku heli jireen waxaan sidoo kale arkayay walaal Khaalid oo aad u eegaya ninka aan sidaas araggiisa ugu waalan gaaray wuxuuna ka codsaday askariga in dhammaan aan wada aadno qolka taliyaha si aan halkaas sheeko yar ula qaadanno ninkan mar hadduu Khaalid intaas yiri oo laga aqbalay waxaa noqday qof yara xasilay waxaana beegsanay dhinaca xafiiska taliyaha oo isna noo diyaar garoobay maxbuuskan waa qaas wuuna ka duwan yahay eedeysanayaasha kale ee ku jira saldhigga da ahaan waxaad moodaa inuu u weyn yahay inta uu la xidhnaa haddana kiis ahaan wuxuu u eg yahay qof u dhaxeeya insi iyo jin xitaa askarta sida insiga caadiga ah oo kale uguma waji furnayn inta uu agtooda joogo tolow ninkani muxuu ahaa mar haddaan anigu helay odaygan waxaa hubaal ah inaanay fogeen gunta qisadaydan laakiin wax walba waxa ay ku xidhan yihiin sida uu u xog waramo ama uu uga run sheego waayo hadduu qisadan ku daro wax yar oo been ah waxa ay qaadan kartaa inay yeelato waji saddexaad oo nagu sii adkaata inaan fahamno natiijada aan wada sugayno sida awgeed waxaa muhiim ah in waraysigiisa aad looga taxadaro odaygu waa qofka kaliya ee garan kara laba arrimood oo noo wada muhiim ah sida kow waa maxay sababta uu iigu yimid habeenkii labo muxuu ugu sameeyey markuu u yimid haddii uu noqdo qof loo adeegsaday dhagarteeda dabcan wuu garan karaa isweydiinta hadda ugu xiisaha badan qisada oo ah waa kuwa saddexda ruux ee maleegay shirqoolka noloshayda maxay iga rabeen haddaba markaan wada tagnay qolkii taliyaha oo aan wada fadhiisanay kuraastii ayaa walaalkay Khaalid wuxuu taliyay uga warramay si guud qisada kadibna aniga ayaa xigay oo ka sii warbixiyay waxa ay helay waxa iga dambeeyay adeer oo dhammaanteen noogu xog ogaalsanaa su'aasha iigu xiisaha badneed ee xilligaas la weydiiyay oo aan boobay markiiba jawaabteeda waxa ay ahayd mid uu ii su'aalay taliyaha oo uu igu yiri ma garanaysaa ninkan jawaabtaas kagama aanan harin kali ahaa ee waxaan mar labaad iyo saddexaad ka sheekeeyay qisadayda ilaa marka dambe la yiri kali ah waxaan ku weydiino bes ka jawaab waxa la gaaray waraysigii odayga maxbuuska ah oo ah kan ugu xiisaha badan ee macluumaadkiisu yihiin kuwa aysan dadka qaar xamili karin waxa uu sheegayo la soco qaybta 13